guddiga gurmadka abaaraha ee uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ah ee Maxamed Xuseen Roble ayaa bilaabay qaybinta qoondadii lacageed ee dawladdu ay ugu tala gashay gurmadka abaaraha. Guddiga oo ay gudoomiye u tahay wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye ayaa maanta gargaar lacageed oo loogu talagalay dadku abaartu ay saameysay waxa ay ku wareejisay dowlad goboleedyada dalka, iyadoo lacagtaasi ay tahay midii loogu talagalay dadkii dhawaan abaartu ay saameynta xoog leh ku reebatay. Wasiirka gargaarka maareynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye iyo sidoo kale wasiirka gargaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaana la hadlay warbaahinta. Waxaa maanta ku sugan halkan guddigii qaran ee dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble arrimaha bini'aadanimo ee dalka ka jira guddiga qaran ee abaaraha. Waxaa halkan ayagana maanta goobjoogna la ah wasaaradihii heer dowlad goboleed dowladaha xubnaha ka ah oo aan rabno inaan ku wareejino qoondadii iyabooha dowladda ay ugu tala gashay arrimaha bini'aadanimo ee dalka ka jira sidii guud ahaan wax looga qaban lahaa. waxaana bishan bilowday ururintii yaboohii oo la qaybiyey, wayna soconaysaa xaaladahaas dartood ilaa bilaha soo socda ee sanadkan 4 bilood ilaa 5 bilood oo ugu horeyso. maanta oo Arbaco bisha Janaayo 5 sanadka 2022 annagoo ah wasiirada dowlad goboleedyada arrimaha gargaarka iyo maareynta masiibooyinka waxaan la kulanay guddiga qaran ee arrimaha gurmadka abaaraha uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble. guddigaas ay gudoomiye u tahay wasiir Khadiija Maxamed Diiriye. waxaan iska dhageysanaa warbixino xaaladaha dalka uu maraayo. waxaan aad uga mahadcelinaynaa guddiga inay maanta nagu wareejiyeen dowlad goboleed kasta qoondadii ku soo aaday qaybtii koowaad ee gurmadka abaaraha ee guddiga soo aruuriyeen. aadaan uga mahadcelinaynaa, waxaana ballan qaadanaynaa in lacagahaas dadka loogu talagalay aan gaarsiinayno. aad u mahadsantiin. Deeq Macalin Chino Chakey, Sab TV, Muqdisho.